xafladan qalinjibinta sanad waliba ayaa la qabtaa caawa oo kale waxaa lagu qabtaa qaacatul mutamaraad oo ah hoolka shirarka caalamiga ee Asar Shariif. caawa waxaa qalin jibinaya arday Soomaaliyeed oo tiradoodu gaaraysa ilaa iyo 450 arday Soomaaliyeed waxayna ka kala baxayaan jaamacadaha kala ah jaamacadda Faca Weyn ee Asar Shariif, jaamacadda Qaahira, jaamacadda Aynu Shamsi 6 Oktoobar. xafladan waxaa ka soo qayb galay oo hadallo ka jeediyay dareenka ardayda soo jiita habeenkii xalayta ahaa xildhibaan Yuusuf Cali Caynte oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar isla markaana wakiilka jaamacadda Carabta ee Soomaaliya Ambassador Cabdullaahi Xasan Maxamuud, gudoomiyaha hay'adda nabadda iyo horumarinta bulshada Soomaaliyeed Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale, Sheekh Cabdinaasir Jaamac Warsame iyo gudoomiyaha naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar Cabdinaasir Cumar Cismaan. dhammaan waxay isku raaceen sida aadanuhu ay muhiim ugu tahay waxbarashada, waxaana dhammaan 450 arday ee Soomaaliyeed ee caawa qalin jibinaya loo soo jeediyay ammaan ku saabsan heerka ay maanta gaarsiiyeen waxbarashadooda, waxaana mas'uuliyiintani hadalladoodii ka mid ahaa. waxaan mar kale aad ugu faraxsanahay konton iyo dhowr arday iyo ardayadood oo Soomaali ah oo jaamacad dhameeyay inaan xaflad u sameeyno. dadku aad bay intii hadashay waa ii mahad celiyeen wala astaxiqu hada kull hada. waxa weeye meesha intaan joogo horta arday baan halkan ka ahaa, ardaynimadana waan aqaanaa, atacaataf macaha waanan jeclahay ee baan iboog wiil ama gabadh markuu ii yimaado inaan wixii suuragala oo meel mari kara inaan la sameeyo waa aad iyo aad baan u jeclahay. waxaan aan rayrayn iyo farax weyn u hayaa xaflad dadkan jaamacadaha ka baxay, gabdhaha nagan quruxda badan ee xuuriyaadka iyo wiilaha la igu qaldamin marmarna waan gabyaayo gabdhaha naga marar badan baan gabay ku sifeeyay inkastoo mid hebel la yiraahdo u qastin wardadiyahow indhaha nagaad buuxiseen iyo qalbiga nagaad khayr ka buuxiseen khayr Allah idin siiyo isku duubnaada. kulli xaal waxa laga maarmaan ah inaan u degdegno cilmiga barashadiisa maxaa yeelay cilmiga la dhalato ma jirto, cilmiga waa la bartaa. waxaan si gaar ah ugu waabinayaa Allah faraxsanahay haweenka sanadsoona islaamka ka hor iska daa in xurriyad la siiyo ama ay wax bartaan waaba la duugi jiro nolosha lagu aasay. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wuxuu yiraahdaa laba jeer ayaan marna qoslaa marna waan iska ooyaa. waxaan qoslaa uu yiri markaan soo xasuusto ilaahayga aan timirta ka samaysanay ee garabka noo saaraa jiray markaan qaajoodo intaan garabka ka goosano cunu jirno alla la cunaayo markii la qaajoodo marna la xaduda ka war markaan noqdo waan qoslaa markaan arkaas xasuusto. waxaan ooyaa uu gabadhayda oo yarista ah marka intaan dadka u faagay arradii aan dadka ka soo saarayay markay garka iga gashay ay garka iga saaraysa ciida iga saaraysay aniguna ciida aan dadka u wado dadka ku riday. ilmiga iyo aqoonta wattaqullaha wa yu'allimukum Allah ilahi subhanahu wa ta'ala. التقوى العلماء الإسلام تعرف فيها الله استقوى aad u sahlantahay waa imtithal al-awamir ilahi wa ijtinab an-nawahi wa taklif الله سبحانه وتعالى كفاية ولا تمادي وحو كاريبينا أذكرت هذا هو معنى التقوى. مركا كنت كالبدي سكونا بحياة آلية قيم وحو قول الحسوسية حديثك معاوية ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كل رقاب أخذ يا عمري ركع ناصر غيره أنا أبويا اللهم يحيى وأني أبو صوتي سعودي علمي أبوت البريد كتاب فيوري وفقه عمرنا سفير صافة أنا واحد أنا كتاب القرآن ليلة iyo waxbarashadooda iyo maanta xafladda aan halkaa u fadhino oo ah qalinjibintoodii runtii qofka haddii uu geed abuurto maalintii koowaad wuxuu ku bilaabaa inuu miro uu dhulka ku rido kadib geedkaas soo baxaya wuu barbaarinayaa markuu muddo barbaariyo kadib geedkii wuxuu dhalayaa miri ayuu laakiin ku ridayo oo kale mid ah ayuu dhalayaa oo fara badan
sidoo kale qaar ka mid a ardayda Soomaali ee dalka Masar ayaa habeenkii xalaytaha ku faraxsanaa dareenkooda caawa heerka uu gaarsiisan yahay ardaydani oo isugu jira hablo iyo wiilal waxa uu dareenkooda ahaa sida tan sii dhameyn doona insha Allah haday Ilaahay isaacido insha Allah oo anagoo Djibouti oo maanta walaalahay Soomaaliyeed oo gabigeena Soomaali inkastoo Djibouti oo mise Soomaaliya ma nahay qalinkii aan 4 sano soo wadnay aan jabinay marka xaqiiqatan waxaan dhihi karnaa maanta waa maalin aanan shucuurta ugu jirto runtii aanan cabiri karin taasoo xaqiiqatan aan u dabaaldegayno qalin jabinteennii ama dhammayntii xaqiiqatan maanta maalin farxad bay noo tahay waa qaacidooyinka daawo la jeedinay waxaa ka mid ah man jadda wajada wa man zaraca xasada marka wuxuu qofka ku soo daarayay inuu maanta uu xasiliyo oo ka soo baxay kulliyada 6 Oktoobar kulliyada Landisa jaamacadda 6 Oktoobar shucuurtii runtii aad ay u wanaagsan tahay waxaan ku faraxsanahay inaan soo qayb galay mid ay dareen waxaan leenahay Ilaahay mahadiis Allihii noo gabagabeeyay waxbarashadaas qiimaha leh dadka kalena waxaan u rajaynaynaa inay noqdaan jaamacad Qaahira kulliyad al-xuquuq aw al-qanuun waxaan maanta ku faraxsanahay ardayda walaalay kula shaarikay qalin jabinta ardayda Soomaaliyeed walaalay waxaana mahad leh reerkayga tabaan dhammaan dadkii habeenkii xalaytaha ka soo qayb galay xafladda waa ay faraxsanaayeen walow ardayda qaar ka mid ah ay isku doonsiinayeen ubaxyo iyo waxyaabaha la midka ah xafladdan waxaa sanad waliba soo qaban qaabiya idaarada naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar oo ka kooban 12 xubnood xafladdan caawa waxaa xiriirinaya Shaafici Ciise Diiri oo ka mid ah mas'uuliyiinta naadiga ardayda Soomaaliyeed ee gudoomiyaha naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar ee sanadkan waa Cabdinaasir Cumar Cismaan Mahad Carabow Cali telefishinka Universal Al-Qaahira